waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dagaalka oo aynu ku soo qaadanayno faahfaahin ku saabsan maalintii 15aad ee dagaalka ka holcaya jamhuuriyadda Ukraine iyadoo ciidamada Ruushku ay waxoogaa horumar ka sameeyeen dagaalka laakiin lagu jabiyay deegaanka jihada bari ee magaalada Kiev halkaasoo lagu khasbay inay dib uga gurtaan kadib markii dusha ay ka garaacday diyaaradda daroonta ee Bayraktar TB2 dhanka dhulkana ay kala kulmeen wax iska caabin adag haatan wax ka yar 20 kiiloomitir ay meelaha qaarkood ciidamada Ruushku uga jiraan caasimadda Kiev iyagoo isku dayay inay isku xeeraan oo godoomiyaan ciidamada Ruushku waxa lagu jabiyay deegaanka Borofay oo ay isku soo urursadeen doonayeen inay weerar ballaaran kaga qaadaan caasimadda deegaanka Borofayna waxa uu qalbiga caasimadda Kiev u jiraa 20 kiiloomitir oo kaliya dagaalkuna waxa uu ka dhacay deegaanka Borofay iyadoo lagu jabiyay ciidamada Ruushka oo lagu khasbay inay markii dambe dib ugu gurtaan meel ka baxsan halkaasi ciidamada Ruushku jihadan kale waxay ilaa haatan haystaan garoonka diyaaradaha ee Gostomel ciidamada Ukraine sidoo kale waxay qareen maanta in ciidamada Ruushku ay qabsadeen magaalada Bonsha magaalada yar oo ilaa 25 kiiloomitir u jirta qalbiga ama bartamaha magaalada Kiev magaalada Irpinna weli dagaaladii ayaa ka socda muddo 7 ciidamada Ruushku haddii ay isku dayaan inay labadooda ciidan ee ka soo kala socda jihada bari iyo jihada waqooyi ay dhankan koonfur galbeed isaga soo wareegaan waxaa dhacaysa inay si rasmi ah u godoomiyaan caasimadda dabeetana ay gacantooda ku dhici karto waqti kasta muuqaaladan haatan waxaynu ku arkaynaa ciidamada Ruushka duqeyntii lagu sameeyay iyadoo aynu si wacan uga dhex arki karno tirada gaadiidka taangiyada iyo hubka kale ee ciidamada ee gawaarida dagaalku ay ka mid tahay ee Ruushku leeyahay ee dib u gurashada sameynaya waana dagaalka ka dhacay deegaanka Borofay halkaasoo lagu jabiyay ciidanka Ruushka waana dagaalka lagu dilay taliyihii ciidamada Ruushka ee aagga fadhiyay iyadoo isgaarsiinta dhex martay taliyayaasha aagga hore iyo xarumaha dagaalgelinta ee dambe ee dalka ee ciidamada Ruushku ay cadaymo fara badan bixiyeen kadib markii ay ka warameen duqeynta ba'an ee ay kala kulmeen diyaaradda Bayraktar Алло, Нитро для удара. Передаю. Нитро, я удар. Алло, Нитро, я удар. Слушаю тебя. удар я Нитро. 6-й полк почти потерял. Что? 6-й полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки. С беспилотника, так я понял, Байрактар летает. sidoo kale jihada waqooyi weli ciidamada Ukraine waxay iska difaacayaan magaalada Chernihiv oo aad uga fog magaalada Kiev laakiin waxaanu sida muuqaalka ka muuqata ciidanka Ruushka ayaa labada dhinac ka soo maray oo u soo gudbay dhanka magaalada Kiev iyagoo ciidamadii Ukraine ay jihada fog ee magaalada Chernihiv difaac kaga jiraan dagaaladii magaalada ka dhacayna waxay sababeen guuldarro ba'an oo ku dhacday ciidanka Ruushka halkaasoo taangiyadii iyo qalabkii kale ay wateen lagu burburiyay sida ka muuqata muuqaalkan aynu haatan daawanayno Надоехало, кацапы.